salaanta islaamka wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu maanta shirkeena jaraa'id wuxuu ku saabsan yahay beenay waa been runay waa run ninka la yaayna cali shiraya inanka yara morgal waxay dadka ku maaweelinayeen dekadda annagaa ka mas-uula waa been dekadda waxa ka mas-uula farmaajo waana aragtaan dadka inta been loo sheegayey dadkii reer berberana gaajo iyo harraad ay u bakteeyaan eeriboorkoodii iyo dekaddoodii intuba ay raxman yihiin taasi waa taa beenay waa been runayna waa run waxaynu kaloo ka sheekaynaynaa maanta sool iyo sanaag waynu aanoo kala qaadqaado sanaag baynu ka horraynaynaa labada reer ee walaalaha ah ee ceelaf weyn isku haysta ee walaalaha la isku dirayo waxaan leeyahay ceella uma qadna ciidanna uma maqna dawladina idinma heshiisiinayso oo iyada isku kiindiraysa odayaalla idin heshiisiin maayo iyaga isku kiindiraya waxaan idin odhan lahaa ilaahay inta ka yaabtaan idinkaa wada dhashay idinkaan cidi iska kiin xigin heshiiya oo odayaal iska dhex sameeya oo waxa idinku kala maqan qolada khaldanay garqaado oo qolada dhaarta jabisay waaba habar jeclaad tihiine ilmaadeerayaalo inta ilaahay ka yaabtaan walaaladiin la heshiiya waddankiiba la iibsayo waa aragtaane taasi waa taa waxa kaloo aan u sheegayaa ceel afweyn labada mujaahid ee lagu xidhay ee aan iyagu ka yimi ceerigaabo in si degdega loo sii daayo ee dhibaatada lagu wado labada mujaahid ee kala ah axmed cabdi iyo siciid saalax geelle in la sii daayo ceel afweyn aa ku xidhateen waayo dhibaatadii baa sii kordhinaysaan taasina waa taa waxaa kaloon idiin sheegayaa ninka la yidhaahdo cali case ee tuuggaa ee reer qori jarato ee suldaankaa ee qudbigii iibinaya reer qori jaratoy shaqo kamaydin qadan caaqilka yaree cabdi xaamud ee meesha la yidhaha jigjigaya qasrigu uga dhisan yahay ee gadhweyn ka iibiyey halkaa ee tuugga ee riyoole ahaa ninkaana iska qabta taasi waa taa oo waxa weeyaan ceelaf weyn iyo gobolka sanaag sool baa yimi waxaan idiin sheegayaa somalilaney meesha la yidhaha kalshaale dawladdii siilaya dagaal bay ka riday xuduud bay lahayd waa soo xidhayaa xuduud xidhantay miyaa aragteen waxaa iminka tukarraq laga doonay sow maaha dhibaato iyo mashruuc oo ay soo qaateen cali khaliif saleebaan gaal iyo ninka lagu yidhaahdo faysal cali waraabe ee tuuggaa saddexdaa nin oo hoggaaminaya mashruuc caynkaasa iyagana in layska qabto oo dagaalkaa la gelinayo xuduud la soo xidhayaana ma jirto xaggan ceerigaabo dabadeeda 40 kilomitir wixii ka dambeeya oo xagga bari ka xiga ceerigaabo waxa ka taagan calankii Soomaaliya maxaa loo soo xidhi waayay kalshaale maxaa loo soo xidhi waayay tukarraq maxaa yaala taasina waa taa dawladdan sii kala guraysa dadka ee qabyaaladda iyo jeegaanta ku sii kala socday ee sii wada ee sixir bararkii ku sii kordhayo ee dekedeedii iibisayna waxaan odhan lahaa waxaanu xashkii uu imanayaa baasaboorradiinnii diyaar gareeya aad lahaydeen baasaboorka meel walba waa lagu tegayaa baasaboor meel lagu tegayaana ma jirto baasaboorra ma tihidin waxaad tihiin gobol ismaamul goboleed waxaad idiin caddaynaya taa khaatumo iyo somalilan baa wada hadlayaa layidhi waayahay ama somalilan iyo khaatumo laba dawladood miyaan dhulkii somalilan ahayn markaa waxaan idiin sheegayaa in been 27 sannadood lidinku maaweelinayay aad u socotaan koonfurra si wanaagsan laakiinse in dadka loogu geeyo oo aan dadkooda la nacsiin bay ahayd taas maanta shirkeenna jaraa'id wuxuu ku saabsan yahay arrimahaas oo xasaasiya oo weliba gobolka la yahay sanaag oo ayaan idin la hadlayaa waxa la sumaynayaa inanka yaree asli maydi wuxuu ku socdaa inuu dhirtii beeyada ahayd uu sumeeyo oo laayo oo kharash lagu soo siiyey inama yaryar maalin dhowta waa kii ceergaabe soo taagay ee lahaa waxaanu ugu baaqaynaa nabad haddana waxa ka aan u mahad celinaynaa asli maydi salaamu iminka u samaystay buurta daalo inankaa yar iyo inanka kaybalka jiibsanaya ee ka yimi jabuuti iska qabta wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu